kal qoray riyo u rumowday qaranguulka rajaynaya dhinac kasta dhaamkii ugu weynaa ee laga hirgeliyay dhul Soomaaliyeed qabashada in ka badan 1,800,000 oo mitir cubic oo biyo macaana mashruuc socday 3 sano oo galay maal ka badan $5 milyan maalgelinta biyo xidhaankan qoray ku baxday oo dhan $5 milyan waxa ay ka kala timid laba dhinac waa dhinaca koobaad oo wakaalada biyaha Hargeysa oo bixisay $4 milyan iyo $300,000 oo u kala baxaysay laba nooc waa mid qalabka culculus ee wakaalada biyaha Hargeysa iyo mid dhaqaale ah oo wakaalada biyaha Hargeysa ay ku dartay halka maalgelinta labaad ay tahay mid ka timid nin ganacsada oo reer Hargeysa oo reer Soomaaliland inkastoo ay Somaliland horumar ka sameynayso dhinacyada nolosha arrimaha bulshada dimuqraadiyadda siyaasadda iyo dawladnimada haddana wali waxay halgan kula jirtaa xal u helidda biyo yaraanta iyo abaaraha soo noqnoqda Hargeysa oo hooy u ah bulsho gaadhaysa ku dhawaad 2 milyan oo qof isla markaasina dhan kasta u fidaysa maalinba maalinta ka dambaysana ay korayaan bulshadeedu waqtiganna ay ka socdaan mashaariic biyo ballaadhina oo reer Hargeysa hooy walba biyo lagu gaarsiinayo haddaba si loo helo biyo caasimadda ku filan waxaa hadda loo jeestay qabashada biyaha hareer kasta ka dhaafaya Hargeysa oo ay ku hareeraysan yihiin dooxyo waaweyn waxay markii ugu horeysay wakaaladda biyaha ee Hargeysa oo halgan ugu jirta sidii ay ugu heli lahayd bulshada caasimadda ee kobcaysa biyo ku filan ay kal qoray ka hirgelisay dhaamkii ugu weynaa ee laga dhiso Somaliland laguna qabto in ka badan 9 milyan oo foosto oo biyo badageli lahaaya maalgelinta biyo xidhaankan qoray ku baxday oo dhan $5 milyan waxa ay ka kala timid laba dhinac waa dhinaca koobaad oo wakaalada biyaha Hargeysa oo bixisay $4 milyan iyo $300,000 oo u kala baxaysay laba nooc waa mid qalabka culculus ee wakaalada biyaha Hargeysa iyo mid dhaqaale ah oo wakaalada biyaha Hargeysa ay ku dartay halka maalgelinta labaad ay tahay mid ka timid nin ganacsada oo reer Hargeysa oo reer Soomaaliland sheekada ama qisada ay ku timid lacagta oo bixinka ganacsadina xaween maalmaha kamid madaxweynihii hore ee dalku oo ila soo hadlay isla marhaanta uu sheegay inuu wada joogaan nin ganacsada oo reer Hargeysa isla marhaanta uu doonayo inuu lacag ku darsado dhaamka lacagta ballanqaadkaas oo markii hore ahaa $500,000 markii dambena noqotay $700,000 sidaan waxaanu ka helnay maalgelinta ballaaran ninka ganacsada oo codsaday inaan magaciisa la xusin oo ku darsaday biyo xidhaanka qoray kal qoray waa dhaam baaxad leh oo loo dhammaystiray dhammaan adeegyadii u baahnaa loona qaabeeyey hab casri ah oo waafaqsan nidaamka badbaado ee dhaamka kan la midka ee dunida laga dhiso ay qaabeeyeen injineeradii wakaaladu bishii March 2023 baa dhaamka dhismihiisu toos u bilaabmay dhaamka kal qoray dhaamkeenu markaa wuxuu ka koobnaa dhererkiisu waxa weeye 658 mitir balliciisa hoosena waxa weeye 50 ilaa 70 mitir iyadoo inta u badani ay inta barasharka biyuhu uu ku dhacayo ay tahay oo bartanka iyo inta u dhow hareerahana uu mar walba u sii yaraanayo haydkiisuna waxa weeyaan ama jooggiisuna 10 mitir dhaamkeena noociisu waxa weeyaan face slab rockfield dam spillwaygiisu wuxuu ku yaalaa dhinaca bari ee dhaamka waa spillway lagu design gareeyay 1000 sanadood daadadka ugu waaweyn ee la filo ee soo mara isla markaana safety factor la siiyay oo laga weyneeyay intii designku soo saaray waxaynu kaloo leenahay oo aynu u sameynay bottom outlet loogu talagalay faa'iidada koowaad in uu siltigu markay gaadho wuxuu ka yar sareeyaa halka u hooseysa dooxa ilaa 3 mitir outlet keenu waana laba pipe oo DN 600 millimeter oo lagu talagalay inay number 1 emergency ahaan loo isticmaalo lacala ilaahay wax lama ogina haddii daadad ka waaweyn inta aynu filanayo yimaadaan in labada outletna la furo si biyuhu ay uga baxaan oo spillwayga rasmiga ay u caawiyaan oo qodobka labaad ee in muxuu ahaayay siltigu marka ay gaadho halka heerka 3 mitir ay soo buuxiso in iyadana laga saaro hadba si seasonal looga saaro oo marka soo roobdo oo laga sii daayo siltiga laga sii daayo qodobka saddexaadna waxa weeye
in haddii dhaamka ay dhibaato soo gaadho dhaamamka wixii soo gaadha repairing baa lagu sameeyaa si joogto ah oo la repair garaynaya dhaamka in biyaha laga sii daayo inta u dambaysa halkaas bottom outletka. waxa kale oo dhaamka aynu u sameynay wixii ciidda ka qabanayay ama siltiga ka qabanayay oo upstreamka aynu ka sameynay waxaynu u sameynay sand dam ama check dam hadba sidii dadku u yaqaano, kaasoo loogu talagalay inuu ciidda ka reebo isla markaana waxa loo furayaa waddo haddii ilaahay ka dhigo ay iska rogooyinku magaalada Hargeysa ciidda usoo qaada dhismayaasha magaalada Hargeysa ciidda usoo qaada waddo ay ka tagaan oo ay ka soo qaataan ciidda si aan sand damku aanu nooga buuxsamin. kal qoray oo lagu qabtay biyo ka badan 1,800,000 mitir cubic ayna gashay maaliyo hanti gaadhaysa $5 milyan. intii uu socday waxa uu la kulmay caqabado waaweyn oo mararka qaar dib u dhac ku keenay, balse hab xirfadaysan iyo dadaal lagaga gudbayay ilaa laga gaadhay dhammaadkii guusha. biyo-xidheenka dhismihiisa waxa uu bilaabmay sanadkii 2023 bishii March waxaanu socday ilaa sanadka 2025 bishii 8aad. qaadka biyo-xidheenku waa 1,800,000 mitir cubic ama 9 milyan foosto. caqabadaha ugu waaweyn ee biyo-xidheenka ka hor yimid dabcan waxa weeyaan waa caqabado dhaqaale oo marka hore qorsho wuxuu ahaa in mashruucan uu noqdo 3 geesood: xukuumadda dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland, ninka ganacsada iyo wakaaladda biyaha Hargeysa. markii uu dhacay dagaalkii ka dhacay gobolka Sool ama colaadii ka abuurantay gobolka Sool, taasi waxay keentay xukuumadda dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland inay aanay waxba ku darin biyo-xidheenkan ay ku soo ururto hawshu culaysku 700 bixin ninka qaran bixiya iyo wakaaladda biyaha Hargeysa. taasi waxay noqotay caqabadda ugu weyn ee soo wajahday mashruucan inuu ahaa caqabad dhaqaale, iyadoo mararka qaar shaqadu muddooyin bilaa ay u istaagnayd sababo dhaqaale darteed. laakiin akhiiran waxay wakaaladdu dadaashaba runtii waxaa naga go'nayd sidaan u sameynay ballanqaadka ninka ganacsada isagoo lacagtiisa bixiyay iyo bulshada reer Somaliland inaanu dhamaystirno, waana ku guuleysanay inaynu dhamaystirno. caqabado walaalaha dabcan haysatay waxa weeyaan waxay in sanadkii 2024 ay jireen roobab ka badan roobabkii noo di'i jiray sanadadii ka horeeyay, iyadoo sanadka dadaalka ugu weyn ee wadna ahayd inuu xidhmo dhaamka inta biyaha qabanaysa ugu yaraan inta biyaha qabanaysa inay xidhanto iyadoo ujeedadu ahayd. laakiin caqabada weyn ee nala kulantay ahayd markii qaybtii dooxu ku dhacay halkii dooxu maray lafta oo bartanka maxaa noqonaysaa biyo-xidheenka oo masaafo dooxa iyo hareerihiisa isku noqonaysa ilaa 70 mitir in markastoo buurta la dhisayo gidaarka dee la dhisay waa buur la dhisay wax jiray ma ahayn buur jirtay ma buurta la dhiso oo sagbadii wajigii hore sagbada saaralaysa in roob weyn soo daayay dabeet roobka weyn uu nagu kalifay dib u dhac balaaran iyo in buurtii dib loo jeexo si biyaha looga saaro. marka caqabadaas waxay naga kulantay bishii 7aad 2024 iyo markii doorashooyinku ay taagnaayeen ama saa looga soo baxay doorashooyinka November 2024 oo caqabad runtii marar badan ay jabisay shaqaalii gacanta ku hayay iyo khubradii gacanta ku haysay dhaamka oo arkeen dhaamka inuu u geysan karto dhibaato dhaawac ku noqota. laakiin markii saddexaad ilaahay nagu asturay inaanu xidhno oo intaas naga xidhanto roobabku intay naga raageen kadibna aynu helnay waqti fiican oo ciidii laga guro dhirtii laga guro. halka caqabadda saddexaadna ahayd beeraha ku xeeran biyo-xidheenka ama la jaarka. guud ahaanna dhismaha dhaamkan baaxadda leh ka bilow maamul, makaanig, injineer, kuuli, qalabka fudud iyo kuwa culus ee lagu hirgeliyey dhaamkani waxay ahayd kuwa ay ku koobnaayeen howlwadeennada wakaaladda biyaha ee Hargeysa. waa tiir iyo tusaale weyn muujinaya awoodda iyo horumarka aynu gaadhnay. sidoo kale wuxuu muujinayaa inaynu annagoo hay-ad dowladeeda aynu ku dhiiranay inaynu dhisno dhaamka ugu weyn Somaliland, taas oo aynaanu cid qandaraas aynu u dhiiban, sidoo kale inaynaanu dhaqaalena ka sugin qaadhaan bixiyaasha. waxaan u mahadnaqayaa howlwadeennadii iyo khubradii kala duwanaa ee ka howlgeliyay wakaaladda biyaha Hargeysa ee dhammaystiray biyo-xidheenka qore. waxaan u mahadnaqayaa ganacsadaha reer Somaliland ee ku daray $700,000 oo ah dhaqaale weyn ku aaminay wakaaladda biyaha Hargeysa si ay qayb uga noqoto dhismaha ama maalgelinta biyo-xidheenka qore. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu markaas suurageliyay in maalgelinta koobaad ee ninka ganacsade ay soo gaadho wakaaladda biyaha Hargeysa, isagoo ninkaasi marka hore doonayay lacagta inuu ku dhiso masaajid ama wax kale oo khayriya.
waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dalka mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo la dhamaystiray biyo xidheenkan intii uu la wareegay talada dalka. waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha niyad furnaanta oo ku qaabilay mashaariicdii markaa socotay oo ah mashaariic waaweyn oo muhiim u ah magaalada Hargeysa iyo dalka. marka laga yimaado in dhaamkani wax ka tarayo dadaaladii biyo ballaadhinta Hargeysa una waraabin doono kumanaan qoys oo kale, dhinaca kale waxa uu kaalin mugle ka qaadanayaa dhinaca bilicda iyo dalxiiska caasimadda. markaa daalacato beerta nasashada iyo dalxiiska ay dacalka dhaamka ka hirgelisay wakaaladda biyaha ee Hargeysa oo ah beer loogu talagalay inay dadweynuhu ku nastaan kana mid ah hantida reer Hargeysa. ugu dambayn dhaamkii kal qoray waa uu dhammaaday, haddana waa mid si toos ah u hawlgelaya. Hargeysina waxa ay heshay hiil kale.